السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام أقول على المدى بجوفتين كسر هذا الشهر run ahaantii maamadan aan ogaan la wadaago codkeedu waa maamo aad iyo aad qalbiga iga taalo aad baan ugu mahadsan tahay maadaama cod ii soo duubtay runtii mar walba ila soo xiriiri jirtay kalibyada ugu horeysay hataa intay ila soo hadashay dhahday maama anaa ku koobsanayo hooyada aad noqonayo runtii waa maamo aada u wanaagsan dadkii ugu horeeyay lacagta ii soo daray way kamid tahay marka aad baad mahadsan tahay marka codkeeda raba inaan aan nila wadaago insha allahu aan wada dhegeysano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقو ماما ذادي لباد واي ماما وحن كوسو دبي مسج كان واد جرين كرتا ما شربتو أما واد هيسن كرتا أديك كجرتا ولكن وكوفة صح أنيجو وأديك ده ما عرفت هذا قدم ما هذا وحنا سوق لنا يا هرت هذا الكاس كعلنن هذا الحكومة هذا الشيء قف إذا بدن قف دجن ayaa tahay qof in lagu daysado mudan ayaa tahay afkiisa ilaaliyo oo dadku waxba u dhimin asaga iska hadla matii dadka iimaanka daran oo cayda dadka iyo inay dadka fadaxeeyaan wax ku doonta naftaada ka hadashaa waana run qof honest ah oo open book ah oo furan waa tahay marka hadalkana isku celiso uma baahnid dad badan oo hadalkana isku celiyaan oo allana ku celiyo u baahan baa jira oo iskana hadlo oo maaragtay isna xakameyn karin oo xaq Allah hadhow laga xakameyn doono laga xisaabin doono kumana jirtid noloshaadana maaragtay qof walba sida gabadhii aan dhageystay ma sha Allah gabar wanaagsan bay ahayd oo maanta aad soo gelisay xisaabta adiga iyo Ilaahay idinka dhaxaysa toobadu markasta waa furan tahay kulli waa simannahay Ilaahay adoonkiisa nahay diintuna ma aha inta kor uu laga arko iyo qofka inta uu maaragtay dadka tuso waa inta qarsoon oo Ilaahay markuusan qofku maaragtay guri soo xirto isku soo xiro guri la arkaynin sida uu Ilaahay ka baqo sida uu u dhaqmo sida uu umadiisa u nabadgeliyo sida afkiisa looga nabadgalo adiga hadda uma malayna inaad dad soo dishay umana malayna inaad dad caydo de wixii kaloo dambiyood gashana Ilaahay haddaad ka toobad keentay asaga iyo adigana cid idin dhaxaysa male Ilaahaaga maaragtay annagana Ilaahayna na wada abuurtay oo u wada simannahay xaqiisa ay toobadu jirtaa asagana noo sheegay in adoonkiisa kan u soo noqdo uu jecel yahay una u dambi dhaafo marka taabaan kale yahay adigana waxaad ogaataa maamo waxaad ogaataa qof wanaagsan oo maaragtay wanaag fidiyo yani afkiisa wanaag ma ahanay aan xuma waxyaabo ka dhacdhacay oo hore waa jireen laakiin yani qof nin dhalinyaro ah iska degan oo dad maagin oo xaraan doonaynin ayaa tahay marka hadalka isku celinin waa run dad honest ah oo open book waa jiraan aniga kamida adiga kamida dad kala jira dadku isku wada mid ma aha Ilaahay sidoo dadka mid dheer iyo mid gaaban u sameeyay ayuuna ugu kala sameeyay hadalka aftahanimada iyo siyaasadda hadal qarsiga badan yani waxa kamaynta dad aan waxba xakameyn karin jira dad waxa xakameyn karana waa jiraan sida dadku u leeyihiin qof xasida iyo qof yani qalbi furan oo qalbi jilicsan ayuu saas tahay dhinaca siyaasadana waa sala barta horta dhinaca siyaasadda gadaalka barta kadib inay wax xakameeyaan marka hadda wax weyn oo maaragtay aad dad siyaasadood sheegtay dad sir ay kugu qarsadeen aad fashirtana ma arag naftaada ka hadashaa tan kale dhinaca waalidka waxaan kuu sheegayaa waxaa jira horta annaga Afrikaan haddaan nahay nalama soo barin parenting hooyo I love you baba nalama soo barin
ku dhufo ka dhaqaaq bay iska ahayd ilmaha waa la iska dhalaayay waa la iska korinayay every family oo ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado muslim ha ahaado gaal ha ahaado yuhuud ha ahaado every family waliba large family hadday yihiin qof waxaa ka dhasha manipulator ah oo waalidka maskaxda ka qabsada oo laga yaabo qofkaasna inuu yahay qofka waalidku ugu jecel yahay qofkaas waxaa laga yaabaa inuu waalidka ilmihiisa kale uu ka xakameeyo ku diro uu waalidka maskaxda ka qabsado uu barto waalidka waxyaabo yaryar oo jecel yihiin inuu u gadgado waxaa laga yaabaa lacagta uu ugu gadaayo inaanu asagu samayn ilmihiisii kale siiyeen waalidkaasna waxaa laga yaabaa qofkaas inuu ilmihiisa u jecel yahay oo uu dhaho kanaa ii sameeyo u duceeyo wax alla wixii ilmihiisa kale siiyeen kan siiyo xataa marmar dhaxalka ilmihiisa dhan intuu ilmihiisa ka qadiyo uu kan uu jecel yahay siiyo waliba waalidka yani third world way u badan tahay xaqa in maaragtay laga yara dhaco hadda diinta la bartana xoogaa dadka way soo bartay in waalidkuna waajib lagu leeyahay ilmahana waajib lagu leeyahay adiga hooyadaa ku dhashay ha ka daalin weligaa ha dhihin imay dhalin because way ku dhashay haddaynay ku dhalin ilmaha kuguma jeclaateen lama dhihi lahayn cunugan adaa kibirka ka badisay tan kale waxaa jirta marmar caruurta kale ay ka masayraan cunuga yar oo hooyadu jeceshaho wadwadato ay ka masayraan waxaa xataa jirta ilmaha walaalaha oo ilmaha dhalay inay kaaga masayraan marmar ilmaha aad la da'da tahay oo ayagu dhaleen oo hooyada ayayda u tahay oo marka aad isla joogtaan ay isdhahayaan duqdu ama cunugan ka jeceshahay caruurta ay ayayda u tahay ama caruurtan hayn lahayd oo cunugan ka hortaagan yahay oo markaa xataa la isku dayo in ilmaha yar hooyadii laga hor saaro si hooyada caruurtaas ay ayayda u tahay u hayso u korkoriso waxaan waa la soo arkay hooyo waa la soo maray keligaa ma aha yacni xasuuso markasta hooyadaasay ku jeclayd oo loo dhihi jiray cunugan adaa isboil ka dhigtay oo jacaylka ka badiso saas ka dhigtay taas xasuuso which is mean inay hooyadaa ku jecel oo maaragta ku dhashay ay tahay qofka hadda gadaal waa laga bartay laakiin markii hore iskama doondooni karin qofka ilmaha uu dhalay lama simi karin ilmaha kale ilmaha xataa ninkeedu dhalay lama simi karin ilmaha ay dhashay ilmaha walaalaheed dhaleen xataa hooyadu lama simi karin ilmaha ay dhashay mid dhifa way yar tahay inta badan hooyada waa laga kasi jiray ilmaha aanay dhalin yacni bondin ma lahayn marka de fact ay ku jeclayd oo hoose kugu wadan jirta adigana aad tafta ku dheganaan jirta oyn jirta markay meel aad ku daba dhigi jirtay waxa waaye hooyadaa inay ahayd oo hooyadaa ku jecel inay ahayd waxaan la leeyahay nalama dhalan meel baa lagaa soo qaaday waana la soo wada yiri kulli waana la soo wada yiri believe me anigan kula hadlaayo maanta maamadan weyn ah waa la igu soo yiri in badan baa la igu soo yiri family kastana qof baa lagu dhahaa I don't know why Soomaalida familkeeda waa waxay isdhahaan waa waxa ciyaar camal u dhahaan waa wax ay camal oo iska kaftana oo laakiin family walba qof lagu dhaho waa wax lala doonto qofka marka xanaaqa yara la isleeyahay waa ka yara xanaaqaya way dhibaysaa lala doonto waa wax ku bilaabma kaftan marka hore marka dambena la iska dhaho marka qofka looga xanaajinayo qofkana cuqdad geliya laakiin walaaluhu ogeyn familada waa ku wada jiraan dad badan oo la soo yiri hooyaday kuma dhalin iyo nalama dhalan iyo meel baa laga soo qaaday waliba ilmaha hadduu xoogaa reerku ekeen iyo hadduu fudfudud yahay iyo haddii maaragta uu dadka kale nafta u keeno iyo hadduu war badan yaho jaajuus yaho xoogaa hooyada dadka ku diro horta hadduu hooyada dadka ku diro cunugaas waa la isugu tagaa ya inta kale isugu tagto hadduusan ahayn manipulator ilmo waxaa jira waalidka dadka ku dira oo manipulator ah oo yaqaana siday
play uga dhex sameeyaan hooyada iyo ilmaha kale dhinac walba ciyaarsiiya ilaa la gaaro inay hooyaduna cisto waalidku ciso hooyada waa waxa inta badan la manipulate gareeyo hooyaduna cisto ilmaha kalena cisaan oo kulli boos oo kale laga dhigo way dhacdaa laakiin kuwa aan aqoon manipulatorka laakiin iska rufiyaan oo warka hooyada u geegeeyo oo inta la qabto la wada tumo oo la wada garaaco oo laga adag yahayna waa jiraan marka geeris laba jir soo wada mar raadkaad hadda ku joogto waa la soo maray ya ereyga aad ka xumaatay oo aan ogahayna waxa weeye inay ku dhahaan hooyaday iyo hooyadeen ereyga Soomaalida dhana isticmaasho aniga haddaan walaalahay la hadlaayo ma dhaho hooyadeen waxaan leeyahay aniga hooyaday saas aniga hooyaday saas aniga hooyaday markaas aniga hooyaday baan leeyahay inay aniga dhashay kaliya camla u hadlaaya ya each of them na markay hadlaayaan mid kasta hooyaday ay leeyihiin hadday wada joogaanna hooyadeen ala dhaha ma aha faquuq waa af-Soomaaliga yani way fiicnayd in sida Englishka our mother our father la dhaho but mine dad ah inaan maadaama nahay mine myself and me maadaama nahay afkayga u bartay hooyaday aabahay ya way isku dhahan caruurta aniga hooyaday kama waali kartid iyo ya hooyaday anigu hadda aadaa iyo hooyaday maaragtay aan ka ducaystay iyo waa dhacdaa iyo hooyaday ma dhibi kartid adigu adoo saas hooyaday ma dhibi kartid waa isdhahan hooyaday ereyga marka taas iyo codad ku gelinin maamo anagoo dhanna hadda Soomaaliya oo dhan waa walaalaha iyo waalidka soo dhawow maamo ha naga cararin no joke waa lagu jecel yahay waa qof waxa tahay yani edebta dadka bara iyo deganaanta iyo dulqaadka ilaahay adduunka wuxuu ku keenuu qabaa adiguna maaragtay maalintii aad xanaaqda camal mindi amal dhayse waxaas mar dambe yaanaan kaa maqlin maaragtay ilaahay hanoo kaa daayo ilaahay sukaaya daayo soo dhow nala joog maamo waana ku jecelnahay cad naga midaa tahay dhiiggeeni baa tahay dheecaankeeni baa tahay ya meel aad nooga go'aysaa iska yar Soomaalinimadu kaama dhaqmayso kaama tirmayso never ever ya kulligeennana sidoo kale marka you are with your family way dhacdaa keliga ma aha qof familka ka faquuqay ama maaragtay la yara geesaha la geliyay oo la durjiyay keliga ma aha adaaba YouTube family haysatid you know what I mean adaaba YouTube family haysata kuwa badan they don't even have nobody saasay tahay illa oo ibra ma noqdaan because you know our culture Somali culture waa saaxiibtinimada marmar walaalnimo noqoto garisnimada marmar walaalnimo noqoto annagii baa isku dhex jirnaa annagii baa isku mashquulsan marmar waa iscunaynaa mar waa isdilaynaa mar waa isu ooyeynaa you know we are emotional people marka waa ka maami stay with us welcome back to your family and maaragta don't disappear okay mamo take care mamo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.